kelidii ayaa xabsigaasi la geeyey waxaana hooyada ka soo maray waayo aad u adag 2 jeer oo ka mid ah ayay aragtay oo la tusay isagoo xabisan way ku indhabeeshay inkastoo imika loo jeexay indhaha haddana murugada iyo dhibaatada ka soo gaadhay xarigga wiilkeeda duruufaha ka soo maray ayay mar walba qalbigeeda ku soo noqnoqonaya hooyo Faadumo Ciise Fariid waxay u aragtaa maadaama ay ka mid tahay dadka qabiilooyinka tirada yar ee ku nool Somaliland oo aan ahayn beesha dhexe iyo beelaha kale in iyada si gaara loo bartilmaameedsaday oo la cusuriyadeeyay waana arrinta ugu weyn ee ay mar walba xusuusta ku noqonaysa maadaama inankeeda lala qabtay dad badan hase yeeshee kelidii oo xarigga ku jiro dunyada ninkii nool wax walba uu arkideeyo noolow wax walba arag baan ka dhigay meesha anaga dibta nagu dhacday waa toon naga horreyn oo cid ka hor naga horreysay ku dhicin dibta nagu dhacday adduunku wuu iska ogyahay mawaadilan waxba ku cadayn oo waxba lagu qabaninoo ayar inta aqalkiisa saq dhaxal laga qaaday Jabuuti loo dhiibay oo la natusin dibtii wixii uu lagu qaaday oo maxkamadiisa la tusin oo la geyn oo la nagu maslaxayay waa tuhuna wax ninkan wax lagu ma haysto maxkamada la soo geyn doono maxkamada ku sugi jirnay imsa cisho oo la noogu keenin ka bacdi saan maxkamada la keeno lahayn Jabuuti baa la geeyay airboodka markii laga qaadanayay la yiri laga saaray la yiri ajaanib baan sidnaa ajaanib ma hayna mawaadil buha abi markuu isaga leega hargeyso macallin diin iyo macallin quraanka ahaa markuu isaga lamid ah dhalinyaraha linka bileysku madrasad weyn ku lahaa halkaas dad badan ugu xudhigi jiray oo sharaf ku lahaa markuu isaga abi leega waana ajaanib baa la yiri waa Ethiopian baa la yiri qalbiid kala lagu sheegay waa ajaanib baa la yiri waa Ethiopian baa la yiri qabiil kala lagu sheegay mawaadilka hadii dambi lagu qabto dambigiisa la sheegaa mawaadilnimadiisa laga ma hadleeyo jinsiyadiisana laga ma hadleeyo ninkii aqli dhiba si kale u fahmaya inankayga sida lagu qaaday niyadayda aan waxa la geliyay inankayga inaan la iibsaday ama la bedeshay kamana fursanaysa wasida waran cadda dhiibay oo nin walba uu dhimana kii dhintay baa dhiibay oo madaxweynihii baa dhiibay oo sirdoonkii baa dhiibay dharkiisa halkii baa laga haray markii la qaadayay waa dharka ii qaad halkii buu dharkiisa kaga tagay isagoo qaawan baa Jabuuti loo qaaday markii dambe aanu tagnay dawladdiina wax waanu soo celin wala soo baariya dhulkiisa ma lagu baaro dhulkiisa maxaa loogu baari waay maxkamadiisa maxaa loo geyn waay meesha waxba ka muuqda oo yala dulmay baan ahay anigu oo yala takoori baan ahay midab ka saac baa la igu sameeyay midab kala saac la sheegaa la igu sameeyay aniga midab kala saac la sameeyay la sheegaa la igu sameeyay aniga siiraaya markii la dooranayay dukaankayga sharaabka ugu qasayo ilaahay igu ogay dumarku markay soo oomaan oo kuwii ku heeqay umadaha maxay waalayay dalkaygaan u waalanayay dadkaygaan u waalanayay maxaa iga qabsaday waxaan noqday ajaanib la garanayn baan noqday ilaahay baa ka abaalmarin nimadooda u taala ninkiina kayga dib u geystay walad dhalay waladkiisa u taala ilmihiisa u taala ayisa u taala dunyadiisa u taala aakhiradiisa u taala in badan baan ooyay oo waxba la qaban maantana waan ooyay ayaan ku ooyay muslim baan ku ooyay Soomaali baan ku ooyay wixii islaam baan ku ooyay wixii islaam baan ku ooyay wixii shaytaan ku ooyay oo inta sidaa u gashay baan wali daba joogaa on doonayeen waxay qabtaan ilaahay baa wax qabta la ilaaha illallah ilaahay baa wax qabta waa ilaahay itaal mali ilaahay baan leh ilaahay baan leh ilaahay baan leeyahay kana waan bariyay ilaahayna waan bariyay
ilaahay baa la baryaa idinkana waxaan idinka codsanayaa inankayga inad ii soo celisaan ood reerkiisii u soo celisaan ood ii soo celisaan ood xorriyadiisii u soo celisaan jabuuti ma haysatee somalilan baa haysata inankayga somalilan ii soo celiso inankayga somalilan ii soo celiso somalilan ii soo celiso oo kuwii dir ay soo celiyaan oo ka jooga haysta ay soo celiyo in badan baan barye inankiisa u tudho ilaahiisa ha ka cabsado inankiisa u tudho ilmihiisa u tudho ha soo celiyo inankiisu la mid yahay soo celiyo oo Ismaaciil Cumar Geele inankiisu la mid yahay soo celiyo ma wadalka gacantiisa ku jira ee loo geeyo Soomaaliyada muslimka ama waadilka ay soo celiyo waxaan ka codsanayaa inankiisu la mid yahay balana wuu ii qaaday warna igu soo celin inuu ii soo daayo balana wuu ii qaaday warna igu soo celin waxaan ka codsanayaa maanta Jabuuti buu joogaa inankiisa la mid inuu ag joogaa inuu ka hadlo uu ii soo celiyo balantii bajiyo intaan madaxweynaha helin buu balan qaaday oo dabadeed buu 3 jeer balan qaaday oo 2 warqadood baan u dhiibay 2 warqadood uu yiri tu kalena waan hayay hooyo calooladeeda Jabuuti baan tagay ay sugtay kelmadaas igu yiri Muuse Biixi jawaabna igu soo celisay jawaabti 3 habeen Jabuuti joogay waa ka fadhiya wuu ag joogaa wuu ka hadli karaa Muuse ay soo celiyo waxaan ka codsanayaa inuu soo celiyo inankayga wuu karayaa inuu soo celiyo waa muwaadiniinkiisa la mid ah oo xukuumaddiisu dhiibtay oo dawladdiisu dhiibtay oo waxa dhiibtay kulmiya dhiibay inankayga kulmiya dhiibay kulmiyaana nu jajabay oo halgamay kulmiya dhiibay inankayga kulmiyaanu haystaa madaxweyne weyn ii soo celiyo inankayga maxkamadii Jabuuti waxay waa la noo keenay annaga wax inankaasi dambiyo halka u yaala maxaanu sameeynaa markaan wax dambiyo halka u yaala ma jirto annagu meel laga haystana ma garanayno kadib markii saanagu yiraahdeen annagu Soomaalilantii qaaday iyaguna ma oran laakiin annagu waxaan u aanaynaynaa Soomaalilantii qaaday maanta inankayga haysato Jabuuti ba haysan madaxweynaha Ismaaciil Cumar Geelana waxaan si naxariis loogu codsanaynaa inuu walaalkay dalkiisu ku xiran yahay 7 sanadood bilaa xukun buu ku xiran yahay inuu walaalkay arrinkiisa uu in naxariis leh uu ku eego uu noo soo daayo uu dalkiisa noogu soo celiyaan ka codsanayna madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geele runtii bayankaas wuxuu ka hadlayaa muwaadin reer Gabiley ah oo hadda ka hor dawladda Soomaaliland intay xidhay haddana ay u gudbisay dawladda Jabuuti oo haatan muddo badan ku xidhan maxay ahayd saldhigga Jabuuti markii koobaadna ma ahayn marar badan oo ka hadalnay arintaas oo waxa weey beesha iyo dhammaan gobolkan Gabiley dhaqameedkii dib uga ka hadlayno baaqawa la wada diray laakiin wax jawaab lagama helin maanta oo dawladda Soomaaliland joogto waftigii uu hogaaminayay madaxweynuhu dawladda Jabuuti ayaanu jeclaysanaa halkan inaanu baaqi marshanaad ku cusboonaysiino u sheegno in xaaladda wada hadalka laga wada hadlayo laguna daro xaaladdan maanta taagan runtii muwaadinkaasi waxa weeye qodob maanta ummadda reer Soomaaliland masiirkeeda ama arrinka ay wada leeyihiin waxa weeyaan dastuurka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland dastuurkaasi wuxuu sheegayaa in muwaadin aan reer Soomaaliland aan loo dhiibi karin dal kale dambi kasta oo uu galo ay tahay in dalkiisa iyo maxay ahayd lagu xukumo maxay ahayd sharciga u yaala Soomaaliland haduu gafka galay laakiin tiima dhicin gafkan in badan waan tabananay runtii maanta dalka waxa ka madaxweynaha shalayna madaxweyne ka ahaa niman halgankiisa ku suntan oo waxa weeye tahay Axmed Maxamed Xuseen iyo tahay Muuse Biixi Cabdiba way garan karayaan xanuunka ay leedahay ama dhibaatada ay leedahay marka arrimaha noocan oo kale ay dhacaan waxaan leenahay in si sharaf leh iyo si milgale uga codsanaynaa in inanka muwaadinka ah intaas oo sano xidhnaa waxa weeye lagu soo celiyay dalkiisa Soomaaliland arrintaana lagu xoojiyo wada hadalka maanta taagan waxa weeye deegaankan Gabiley dad badan buu Ilaahay wada dhigay dadka Ilaahay wada dhigay waxa weeye shalay toole cid bay dawladdii siyaad barbeegsanaysa waxa dhacday beesha uu ka soo jeedo muwaadinkaasi in halganka abaal weyn ay u galeen oo haday tahay hantidoodii haday tahay nafahoogii intaba ay badbaadiyeen oo isku sheegeen iyagu inuu dadkani dad iyaga ay yihiin maanta ugumaanaan fadhiyin in mujaahidiintii dalka qabsaday inay arrintaa daawadaan ay eegaan siday doontaba ka noqotee laakiin waxaan maanta haddana mar labaad martidiiganahay
حاول لبحنين قلي وحل لبحنين قلي ين قلة لا بدل وخلي قناة إن بالحصوص دي بدو نقطان شلال كي تغنيدو مانتا مواد كاكا صفر طامسة حالة تاغن وايو حنسو غاني إن دولة جيبوتي مواد كاكا حرنتا دولة الصومال لانو كلا هدشلا سو دينتي ده مدحوينه انتو جاغدا مدحويننimo ku jiray ee talada hayay dhowr mar oo gabilay yimid gobolka gabilay rees gabilay iyo waxa way beeshuba kala hadashay arinta inuu ka howlgalo iyo ololaha markuu ku jirayba waxaan leenahay madaxweyne waxa way arintii iyadahayd insha Allah sida quruxda nagu soo dhameeyay halkan waxa isku yimid qoyskii Abdullahi Cabdiraxmaan oo ah muwaadin Somalilander ah oo loo dhiibay waddanka Djibouti ayna u dhiibtay dawladda Somaliland waqtigii uu siirayo madaxweynaha ka ahaa waddanka kulli hadalka badan maayo warka waa laga wada dharagsan yahay waxaan doonayaa hawshaasi inaan kulli maadaama ay madaxdii Somaliland iyo Djibouti ay isugu tageen iyo tii Soomaaliya ay isugu tageen marka waddanka Djibouti hawlna halka ay ku hayaan inaan xasuusiyo hawsha walaalkayo Abdullahi Cabdiraxmaan oo muddo 6 sano iyo bil ah ku xiran waddanka Djibouti runtii kulli waa arin inta abada nagu mudnaa oo kulli dhibaatooyin fara badan ay waalidka ka soo mareen annaga naga soo mareen xaaskiisa ka soo mareen ubadkiisa ka soo mareen markaasi hooyana kulli uu indhabashay loona qalay indhaha markii ay soo aragtay ka bacdi ay sidii xoogaa ay ka roon tahay markii ay 2 jeer ay u tagtay ay indhaheeda ku soo aragtay marka ay aad marka sidii u dhaanto haddana ay murugadii iyo ciil oygi wila halta sidii u taagay runtii hadalka badan maayo waalidkan uga tagi doonaa insha Allah waxaan doonayaa inaan xasuusiyo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi iyo madaxweyne Ismaaciil Umar Geelaba inanka ku xidhan kulay ilmuhu kullu mid yahay waa nin muwaadin Somalilander ah Soomaali ah marka ma doonayo inaan hadalka ku sii teegaalo waalidkan uga bixi doonaa insha Allah inanka 7 sano 6 sano iyo bisha ku xidhnaa Djibouti in loo soo daayo xaridiisa loo soo celiyo waddankiisa lagu soo celiyo hooyada loo soo celiyo xaaskiisa iyo ubadkiisa loo soo celiyo intaasaan ka codsanaynaa madaxweyne Ismaaciil Umar Geele oo maanta gacanta ku haya madaxweyne Muuse Biixi waxa leenahay inankaasi kulli waqtiga way ka horeysay xilliga xilka haysay laakiin xisbigaagu buu ahaa cid dhiibtay marka maanta arrinka kolba sidaad ka yeesho insha Allah baanu anaguna kugu lisi doonaa in badanna waad noo ballan qaaday inaad soo gurigiisa ku soo celin doonto ama waddankiisa ku soo celin doonto muwaadin Abdullahi Cabdiraxmaan oo haddaanu reer gabileynahay iyo shakhsiyan anigu dee marka ama shakhsiyan hada ama oday magaalaha haade waxaanu ka codsanaynaa madaxweynaha dawladda Djibouti mudane Ismaaciil Umar Geele kelidii ayaa xabsigaasi la geeyey waxaana hooyada ka soo maray waayo aad u adag 2 jeer oo ka mid ah ayay aragtay oo la tusay isagoo xabisan way ku indhabeeshay inkastoo imika loo jeexay indhaha haddana murugada iyo dhibaatada ka soo gaadhay xaligga wiilkeeda duruufaha ka soo maray ayay mar walba qalbigeeda ku soo noqnoqonaya hooyo Faadumo Ciise Fariid waxay u aragtaa maadaama ay ka mid tahay dadka qabiilooyinka tirada yar ee ku nool Somaliland oo aan ahayn beesha dhexe iyo beelaha kale in iyada si gaara loo bartilmaameedsaday oo la cusuriyadeeyay waana arrinta ugu weyn ee ay mar walba xusuusta ku noqonaysa maadaama inankeeda lala qabtay dad badan hase yeeshee kelidii oo xaligga ku jiro adduunyada ninkii nool wax walba uu arkideeyo noolow wax walba arag baan ka dhigay anaga dibta nagu dhacday waa toon naga horeyn oo cid ka hor naga horeysay ku dhicin dibta nagu dhacday adduunku wuu iska ogyahay ma waalidan waxba ku cadeyn oo waxba lagu qabanino ayar inta aqalkiisa saq dhaxal laga qaaday Djibouti loo dhiibay oo la natusin dibtii wixii uu lagu qaaday oo maxkamadiisa la tusin oo la geyn oo la nagu maslaxayay waa tuhuna wax ninkan wax laguma haysto maxkamadda la soo geyn doono maxkamadda ku sugi jirnay imsa cisho oo la noogu keenin ka bacdi saan maxkamadda la keeno lahayn Djibouti baa la geeyay airboodka markii laga qaadanayay la yiri laga saaray la yiri ajaanib baan sidnaa
ajaanib ma ahayna mawaadil buu ahaa aabii markuu isaga leega Hargeyso macallin diin iyo macallin quraanka ahaa markuu isaga la mid ah dhalinyar ahaa liinka bilaysku madrasad weyn ku lahaa halkaas dad badan uu xudhigi jiray uu sharaf ku lahaa markuu isaga aabii leega waana ajaanib baa la yiri waa Itoobiyaan baa la yiri qabiil kala lagu sheegay waa ajaanib baa la yiri waa Itoobiyaan baa la yiri qabiil kala lagu sheegay mawaadilka hadii dambi lagu qabto dambigiisa la sheegaa mawaadilnimadiisa lagama hadleeyo jinsiyadiisana lagama hadleeyo ninkii aqli dhiba si kale u fahmaya inankayga sida lagu qaaday niyadayda waxa la geliyay inankayga inaan la iibsaday ama la bedeshay kamana fursanaysa wasida waran cadda dhiibay oo nin walba uu dhimana kii dhintay baa dhiibay oo madaxweynihii baa dhiibay oo sirdoonkii baa dhiibay dharkiisa halkii baa laga haray markii la qaadayay waa dharka ii qaad halkii buu dharkiisa kaga tagay isagoo qaawan baa Jabuuti loo qaaday markii dambe aanu tagnay dawladdiina wax waanu soo celin wala soo baariya dhulkiisa ma lagu baaro dhulkiisa maxaa loogu baari waay maxkamadiisa maxaa loo geyn waay meesha waxba ka muuqda ooyala dulmay baan ahay anigu ooyala takoore baan ahay midabka saac baa laygu sameeyay midab kala saac la sheegaa laygu sameeyay aniga midab kala saac la sameeyay la sheegaa laygu sameeyay aniga siiraaya markii la dooranayay dukaankayga sharaabka ugu qasayo ilaahay igu ogeeyay dumarku markay soo oomaan oo kuwii ku heeqay midaha maxay waalayay dalkaygaan u waalanayay dadkaygaan u waalanayay maxaa iga qabsaday waxaan noqday ajaanib la garanayn baan noqday ilaahay baa ka abaalmarinay nimadooda u taala ninkiina kayga dib u geystay wala dhalay waladkiisa u taala ilmihiisa u taala ayisa u taala dunyadiisa u taala aakhiradiisa u taala in badan baan ooyay oo waxba la qaban maantana waan ooyay ayaan ku ooyay muslim baan ku ooyay Soomaali baan ku ooyay wax islaam baan ku ooyay wax islaam baan ku ooyay wax shaytaan ku ooyay oo inta sida u gashay baan wali daba joogaa oo doonayeen waxay qabtaan ilaahay baa wax qabta la ilaaha ilaahay baa wax ka wax qabta way ilaahay itaal mali ilaahay baan leh ilaahay baan leh ilaahay baan leeyahay kana waan bariyay ilaahayna waan bariyay ilaahay baa la bariyaa idinkana waxaan idinka codsanayaa inaan kaygeena idin soo celisaan ood reerkiisii u soo celisaan ood ii soo celisaan ood xorriyadiisii u soo celisaan Jabuuti ma haysatay Soomaaliland baa haysatay kayga Soomaaliland ii soo celisay kayga Soomaaliland ii soo celiso Soomaaliland ii soo celiso oo kuwii dir ay soo celiyaan oo ka jooga haysta ay soo celiyo in badan baan bariyay inankiisa u tiro ilaahiisa ka cabsado inankiisa u tiro ilmihiisa u tiro soo celiyo inankiisu la mid yahay soo celiyo oo Ismaaciil Cumar Geele inankiisu la mid yahay soo celiyo ma wadalka gacantiisa ku jira ee loo geeyo Soomaaliyada muslimka ama waadilka ay soo celiyo waxaan ka codsanayaa inankiisu la mid yahay balana wuu ii qaaday warna igu soo celin inuu ii soo daayo balana wuu ii qaaday warna igu soo celin waxaan ka codsanayaa maanta Jabuuti buu joogaa inankiisa la mid inuu uu ag joogaa inuu ka hadlo uu ii soo celiyo balantii bajiyo intaan madaxweynaha helin buu balan qaaday oo dabadeed buu 3 jeer balan qaaday oo 2 warqadood baan u dhiibay 2 warqadood uu yiri tu kalena waan hayay hooyo calooladayda Jabuuti baan tagay ay sugtay kelmadaas igu yiri Muuse Biixi jawaabna igu soo celisay jawaabtii 3 habeen Jabuuti joogay waa ka fadhiya wuu ag joogaa wuu ka hadli karaa Muuse ay soo celiyo waxaan ka codsanayaa inuu soo celiyo inankayga wuu karayaa inuu soo celiyo waa mawaadiliinkiisa la mid ah oo xukuumaddiisu dhiibtay oo dawladdiisu dhiibtay oo waxa dhiibtay kulmiya dhiibay inankayga kulmiya dhiibay kulmiyaana u jajabay oo halgamay
kulmiyaa dhiibay inankayga kulmiyaanu haystaa madaxweyne weyn ii soo celiyay inankayga maxkamadii Jabuuti waxay yiraahdeen waa la noo keenay annaga wax inankaasi dambiyo halka u yaala maxaanu sameynaa markaan uri wax dambiyo halka u yaala ma jirto annagu meel laga haystana ma garanayno kadib markiisa anagu yiraahdeen annagu Soomaaliland tii qaaday iyaguna ma oran laakiin annagu waxaan u aanaynaynaa Soomaaliland tii qaaday maanta inankayga haysato Jabuuti ba haysan madaxweynaha Ismaaciil Cumar Geelana waxaan si naxariis loogu codsanaynaa inuu walaalkay dalkiisu ku xiran yahay 7 sanadood bilaa xukun buu ku xiran yahay inuu walaalkay arrinkiisa uu in naxariis leh uu ku eego uu noo soo daayo uu dalkiisa noogu soo celiyaan ka codsanayna madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geele runtii bayaankaasi wuxuu ka hadlayaa muwaadin reer Gabiley ah oo hadda ka hor dawladda Soomaaliland intay xidhay haddana ay u gudbisay dawladda Jabuuti oo haatan muddo badan ku xidhan maxay ahayd saldhigga Jabuuti markii koobaadna ma ahayn marar badan oo ka hadalnay arintaas oo waxa weey beesha iyo dhammaan gobolkan Gabiley dhaqameedkii dib uga ka hadlayno baaqawa la wada diray laakiin wax jawaab laga ma helin maanta oo dawladda Soomaaliland joogto waftigii uu hogaaminayay madaxweynuhu dawladda Jabuuti ayaanu jeclaysanay halkan inaanu baaqii marshanaad ku cusboonaysiino u sheegno in xaaladda wadahadalka laga wada hadlayo laguna daro xaaladdan maanta taagan runtii muwaadinkaasi waxa weeye qodob maanta ummadda reer Soomaaliland masiirkeeda ama arrinka ay wada leeyihiin waxa weeyaan dastuurka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland dastuurkaasi wuxuu sheegayaa in muwaadin aan reer Soomaaliland aan loo dhiibi karin dal kale dambi kasta oo galo ay tahay in dalkiisa iyo maxay ahayd lagu xukumo maxay ahayd sharciga u yaala Soomaaliland haduu gafka galay laakiin tiima dhicin gafkan in badan waan tabananay runtii maanta dalka waxa ka madaxweynaha shalayna madaxweyne ka ahaa niman halgankiisa ku suntan oo waxa weeye tahay Axmed Maxamed Xuseen iyo tahay Muuse Biixi Cabdiba way garan karayaan xanuunka ay leedahay ama dhibaatada ay leedahay marka arrimaha noocan oo kale ay dhacaan waxaan leenahay in si sharaf leh iyo si milgal ah uga codsanaynaa in inanka muwaadinka ah intaas oo sano xidhnaa waxa weeye lagu soo celiyay dalkiisa Soomaaliland arrintaana lagu xoojiyo wada hadalka maanta taagan waxa weeye deegaankan Gabiley dad badan buu Ilaahay wada dhigay dadka Ilaahay wada dhigay waxa weeye shalay toole cid bay dawladdii siyaad barabeegsanaysa waxa dhacday beesha uu ka soo jeedo muwaadinkaasi inay halganka abaal weyn ay u galeen oo hadday tahay hantidoodii hadday tahay nafahoogii intaba ay badbaadiyeen oo isku sheegeen iyagu inuu dadkani dad iyaga ay yihiin maanta ugumaanaan fadhiyin in mujaahidiintii dalka qabsaday inay arrintaa daawadaan ay eegaan say doontaba ka noqotee laakiin waxaan maanta haddana mar labaad martidiiganahay hawe libaxnin galay iyo waxa la libaxnin ganay iyo nin galada labadaba u kala yaqaanay in bal xasuustii dib aad ugu noqotaan shalay halkii taagneedo maanta muwaadinka ka soo furdaamisa xaaladda taagan waayo waxaan soo ogaanay in dawladda Jabuuti muwaadinka ay kaga xiran tahay dawladda Soomaaliland kala hadasho soo deynteeda madaxweynuhu intuu jagada madaxweynenimo ku jiray ee talada hayay dhowr mar oo Gabiley yimid gobolka Gabiley rees Gabiley iyo waxa weeye beeshuba kala hadashay arrinta inuu ka howlgalo iyo ololaha markuu ku jirayba waxaan leenahay madaxweyne waxa weeye arrintii iyada ahayd insha Allah sida uu qurxoon u salamay halkan waxa isku yimid qoyskii Cabdilaahi Cabdiraxmaan oo ah muwaadin Somalilander ah oo loo dhiibay waddanka Jabuuti ayna u dhiibtay dawladda Somaliland waqtigii uu siirayo madaxweynaha ka ahaa waddanka kulli hadalka badan maayo warka waa laga wada dharagsan yahay waxaan doonayaa hawshaasi inaan kulli maadaama ay madaxdii Somaliland iyo tii Jabuuti ay isugu tageen iyo tii Soomaaliya ay isugu tageen marka waddanka Jabuuti hawlna halka ay ku hayaan inaan xasuusiyo hawsha walaalkayo Cabdilaahi Cabdiraxmaan oo muddo 6 sano iyo bil ah ku xiran waddanka Jabuuti runtii kulli waa arrin intaaba nagu mudnaa oo kulli dhibaatooyin fara badan ay waalidka ka soo mareen annaga naga soo mareen xaaskiisa ka soo mareen ubadkiisa ka soo mareen markaasi
hooyana kulley u indhabeeshay loona qalay indhaha markii ay soo aragtay kabacdi ay sidii waxoogaa ay ka roon tahay markii ay 2 jeer ay u tagtay ay indhaheeda ku soo aragtay marka ay aad markaa sidii u dhaanto haddana ay murugadii iyo ciil oygi wiilaa halta sidii u taagay runtii hadalka badan maayo waalidkaan uga tagi doonaa insha Allah waxaan doonayaa inaan xasuusiyo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi iyo madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelaba inanka ku xidhan kulay ilmuhu kullu mid yahay waa nin muwaadin Somalilander ah Soomaali ah marka ma doonayo inaan hadalka ku sii teegaalo waalidkaan uga bixi doonaa insha Allah inanka 7 sano 6 sano iyo bisha ku xidhnaa Djibouti in loo soo daayo xaridiisa loo soo celiyo wadankiisa lagu soo celiyo hooyadii loo soo celiyo xaaskiisa ubadkiisa loo soo celiyo intaasaan ka codsanaynaa madaxweyne Ismaaciil Cumar Geele oo maanta gacanta ku haya madaxweyne Muuse Biixina waxaan leenahay inankaasi kulli waqtiga way ka horeysay xilliga xilka haysay laakiin xisbigaagu buu ahaa cid dhiibtay marka maanta arrinka kolba sidaad ka yeesho insha Allah baanu dee anaguna kugu lisi doonaa in badanna waad noo ballan qaaday inaad soo gurigiisa ku soo celin doonto ama wadankiisa ku soo celin doonto muwaadin Cabdullaahi Sheekh Cabdiraxmaan oo haddaanu reer gabilaynahay iyo shakhsiyan anigu dee marka aan shakhsiyan hada amaan oday magaalaha haade waxaanu ka codsanaynaa madaxweynaha dawladda Djibouti mudane Ismaaciil Cumar Geele